qaar ka mid ah dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada Burco ayaa maanta isugu yimid xarunta maamulka gobolka Togdheer. Dadkani ayaa waxay cabasho ka muujinayeen maamulka gobolka Togdheer oo ay sheegeen inuu dayacay dadkaasi. Qaar ka mid ah dadkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen inaan la daryeelin waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland. Ilaahay baan waxaan ku weydiisanaynaa dawladana waan ku soo eeranay meesha la yiraahdo farfadhiisano ka nimi baahi baana dhigtay dadkii soo caydhoobay baanu nahay andhibi in yar mooye inta kala qatan tahay baanu nahay waxa weeye rag baa noo tariya rag baa magacyo wax ku soo qaata waxba kama aragno dadka magaalada jooga ay siiyaan inta baahana waa dhaafaan inta dheregtay ay siiyaan ilaahay dawladanu kaga soo eerana waxaanu cabanayna ragayaga waxaanu cabanayna madaxda waxaanu cabanayna culimada diinta waxaanu cabanayna wixii diir islaan leh baahi baan haysta hooylaan baan haya maxaan sheegay anfac la'aan baan haysta dabad bax baanu nahay sidii maalkayagu baxay cid gacan ma eegin ilaahay waxaanu tala saarnaa ragayagu neego in maayirku neego awoodda ilaahay baa nala eego isugu nimi in nala qaabilo oo wax nala siiyo oo dawladda iyo dadka iyo hay'aduba na qaabisho haysana meel baanu fadhinaa oo nala fadhiisiye dadkii saas u yaacaya kaadhar iyo qabyaalad baa soconaya anagu bartaanu fadhino in wax naloogu keeno oo hay'adu wax noogu keento oo ayna qaabisho yaanu doonaynaa in dadka dusduska ah ee wax loo dhiibayo nalaga bedelaanu doonaynaa qolada bacdiyaalka jooga NDB-ga report ka dambeeya marka dadkaas waa baahane wax maamulo loo sameeyay ma jiro waana baahane waa dad bacdiyaal waa dad dayacan waa dad bacadka iyo roobka iyo dhaxanta mid walba u dayacan wax la wax heelay waxaan leenahay dadka ganacsatada iyo hay'adaha maxalliga iyo dawladda wuxuuba inay hoos u eegaan dadka magaalada xooluhu ka baxeen iyo farfadhiisay maata iyo dad jilicsan ba halka ku dayacan dawladuna war uma hayso cid u maqanina ma jirto marka halka waxa laga qabto warasaabka gobolka Togdheer waan arintaasi wax ka weydiinay ayaa waxa uu ku jawaabay dadweynaha reer Burco mid aan isweydiino halkan imika waan arkaa waa dhalinyaradii waxa weeyaan waa hablii dhalinyaradaha waa odayaashii waa haweenkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri isunaxa aan idin xariiste waxa la sheegayaa dadka ay DB-yada jooga maalinta la israaho wuxuu qaybiya 5,000 oo qof oo magaalada ka tagay inay IDB-gi tagayaan waa waxa ilaahay raxmaadiisa iyo roobkiisa inooga dheereeyay sidaas inoo ballana waxba idinka hagran mayno waanu idin qayla dhaamayna haday hay'adii haday dawladii haday cid kale tahayba ilmaada rayaal wixii la idin soo helo isugu naxariisto waarkii shalay qaatayo kamaantooda waa markii ugu horeysay ee qaar ka mid ah dadkii abaartu saameysay ee isugu soo biyashubtay kaamamka ku yaala magaalada Burco ay cabasho ka muujiyaan maamulka gobolka Togdheer iyaguna cabashadooda ka sheegay xarunta looga arrimiyo maamulka gobolka Togdheer Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer